عشركنا maanta insha Allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay English to Somali translation ereyo cusub ayaa waxaan ku tarjumaynaa luqadda Soomaaliga marka insha Allah dhageysi haboon interdependent isku tiirsanaan waaye interdependent isku tiirsanaan interconnected isku xirnaan wax isku xiran inta badan waxa ay ku qotontaa xiriirka bulshada xiriirka u dhaxeeya bulshada dhexdeeda interconnected ama isku xidhnaan interconnected kan kore waxa weeye interdependent isku tiirsanaan dependent baa waxay tahay kaliyeed kolkii la yiraahdo independent waa xorriyad ama wax kaliya gaar u taagan marka interdependent waxay noqonaysaa isku tiirsanaan interconnected waxay noqonaysaa isku xidhnaanta bulshada oo kale violent waxaan dhahaynaa gacan ka hadal waa qof salaan oo kale dhibaato iyo dagaal wada oo kale aan dhahaynaa qof u gacan qaaday ama xabad ha noqoto ama gacan qaad ha noqoto waa gacan ka hadal violent gacan ka hadal ayaan dhahaynaa sida isku dhacyada oo kaleeto ama tu gacan qaad ha noqoto ama tu xabad la soo adeegsado ha noqoto waa garanay designed sidii loogu talagalay camal waa qaabkii loo dejiyay ama loo jaangooyay wax u dhacay waxaan dhahaynaa designed sidii loo dhigay ama tusaale ahaan oo kale waxbaad qorshaysay inaad qabato shaqo sidii aad u qorshaysay ayayna kuugu dhacday marka waxaa leedahay I designed already my work or I planned already my work waa garanay political waxaan dhahaynaa siyaasadeed waa qaab political siyaasad baan dhahaynaa siyaasad intaan ka bixinaynaa siyaasad waa political waa siyaasad waan naqaanaa inagu siyaasad waxaan u naqaanaa ninka siyaasiga ama inta badan nidaamka iyo maamulka iyo waxa meesha ka jira siyaasad noocaas waa khiyaanana way noqon kartaa in wixii la siyaasadeeyo ama la khiyaaneeyo laakiin tani waxay hadda ka turjumaysaa siyaasadda caadiga dadka ku jira ama ninka siyaasiga xildhibaanku waa siyaasi wasiirku waa siyaasi madaxweynuhu waa siyaasi iyo inta la halmaasha waa garanay economic maxaan dhahaynaa dhaqaale waa wax kasta oo nolosha bulshada wax ka bedelaya dhaqaale waa economic waxaan dhahaynaa dhaqaale social bulsho ereygan waxaa ku dhawaaqaysaa coas labadan c tan iyo mid waxay noqonaysaa ka midna c bay ugu dhawaaqaysaa coas qasbid bay noqonaysaa qasbid intermediate maaha intimidate waa cabsigelin intimidate cabsigelin convey gaadhsiin convey campaigna laga kala to take an information or something from one place to another ayay noqonaysaa convey wax meel laga qaado oo meel kale la gaadhsiiyey inta badanna xogta iyo warka loo isticmaalaa target waxaan dhahaynaa bartilmaameed waa tiro badan yahay laakiin tusaale waxaan usoo qaadanaynaa qofba ujeedda leh inuu gaadho tusaalahaan oo kale ninka siyaasiga waxaa laga yaabaa hadduu xildhibaan yahay inuu xaqiijiyo kursigiisa inuu ku guuleysto madaxweyne hadduu yahayna wuxuu xaqiijinayaa inuu ku guuleysto kursigiisa siyaasaddiisana meel mariya marka waa bartilmaameed waan garanay civilian waxaan dhahaynaa rayid civilian waxaan odhanaynaa civilian waa rayid dadka shacabka ee caadiga civilian iyo rayid waa isku mid waa dad aan hubaysnayn civilian grievance cabashada kulaa waa dhibaato dad loo geystay oo ka cabanaya wax dhibaato ku ah iyaga cabasho waaye cabashada caadiga qof kalka dhibaato loo geysto uu sameeyo grievance ama dadku inay ka xun yihiin wixii loo geystay ama dhibaato loo geystay dhacday grievance taasna waxaan dhahaynaa cabashada ama cabasho kolba saa u dhigta afka Soomaaliga waa garanay correlation isku xidhka the correlation between the government and
the people aan dhahaynaa isku xidhka u dhexeeya bulshada iyo dadka. Correlation isku xidhnaansho waa garanay. Investigate baaritaan. Investigation ama investigate dheh. Investigate waa magacii. Investigation hadday noqotona ficilkii bay noqoni. Investigate ayaan dhahaynaa baaritaan. Waa kolkii shil dhaco ama dembi dhaco kadib la ogaado in la baaro sababta u dhacday iyo cidda geysatay in la ogaado. Interdependent kor ayaan kusoo maray ereygan interdependent. ma baahanin dabcan interdependent hal maraan ku celinaynaa. Interdependent oo isku xirnaanshaha ama isku xiran isku tiirsan dheh. Interdependent isku tiirsanaan maxaa laga wadaa? Tusaaladan soo qaadano qoyska hooyada iyo aabbaha iyo ilmaha waa dad isku tiirsan. Ilmuhu hooyada la'aanteed ma noolaan karaan, hooyaduna ilmaheeda la'aanteed way adagtahay inay noolasho. Aabbaha laftirkiisu way ku adagtahay inuu noolaado reerkiisa la'aanteed. Marka waa dad isku xiran oo dan naf iyo nololba wadaaga. Marka waa isku xirnaansho. Qoyska kolkii laga tago bulshada noqon karta, dowladaha hataa noqon karta in la isku xirnaado. Interdependent isku xirnaan. Interconnected waxaan dhahaynaa isku tiirsanaan midda kore. Interdependent isku tiirsanaan midda hoose. Interconnected dependentigan connection intana connected soo ma intaasaa connect kolka intaas tahay. Inta dambana waxay noqonaysaa isku xidhnaan. Interconnected isku xiran ama isku xidhnaansho. Violent waxaan dhahaynaa waa gacanka hadal, sida kooxaha hubaysan ha noqdaan ama kuwaan hubaysnayn oo gacan isu qaada ha noqdaan. Maxay noqotay violent gacanka hadal. Incident dhacdo. Design waxaan dhahaynaa sidii loogu talagalay. It was designed waa guriga kolkii la dhisayo injineerku wuu design karayaa. Af Soomaalina waxaan u maleynaya inay tahay naqshad. Siday la tahay naqshadayn. Wax la naqshadeeyey qaabkii loo samayn lahaa ama u dhici lahaa. Waa garanay. Political siyaasad. Economic dhaqaale. Social bulsho. Core qasbid. Intimidating cabsi gelin. Convey gaadhsiin. We have to convey the message to the rest of the people. Waa inaan fariinta gaadhsiina dadka intooda kale. Intimidate. Target bartilmaameed. Civilian right waa dadka shacabka ayaan hubaysnayn caadiga. Grievance habasho. Grievance waxaan dhahaynaa cabasho. Correlation isku xidhka waa ficiltani. Marka hadda isku xidhnaan hadday noqoto waa magac. Isku xidh hadday noqoto waa magac. Laakiin haddii la yidhaahdo isku xidhka waa isku xidh waa ficil bay noqonaysaa. waa garanay. Correlation. Investigate baaritaan ayaan dhahaynaa isagana. Marka insha Allah intaasaan ku daynaynaa. aad baan idiin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.